xiisad dagaal ayaa weli ka taagan deegaanka Rooc ee duleedka magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo shalay ka dhacay dagaal xooggan oo iskaga hor yimaadeen laba maleeshiya beeleedka ayaa mar kale xalay ku dagaalamay deegaankaasi iyadoo saakay ay weli halkaas isku hor fadhiyaan xiisada colaadeed ee ka taagan deegaankaasi ayaana mid aad u kacsan sida ay sheegayaan dadka deegaanka maamul goboleedka Puntland ayaana sheegay in arintaasi ay wax ka qaban doonaan isla markaana ay soo afjari doonaan dagaalkan u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed ayaana salka ku haya muran muddo fara badan soo taagnaa oo ku saleysan dhinaca dhulalka kaasi hore go'aan uga soo saareen maamulka Puntland kuna mamnuuceen in la xariisto dhulka ka dhaxeeya dadweynaha asayeeshee murano fara badan oo dhulkaasi ka dhashay ayaa sababay in ay isku gacan qaadaan maleeshiya beeleedka halkaasi wada dega ilaa haatan ma jirto cid ku baxday isla markaana ku kala hagoogatay labadan maleeshiya beeleed ee ku dagaalamaya duleedka magaalada Galkacyo gaar ahaan deegaanka Rooc kaas oo ay weli xiisad dagaal ka taagan tahay si kastaba ee gobolka Mudug ayaa waayay ugu dambeeyay waxa ku soo badanayay dagaalada ay iskaga hor imanayaan maleeshiya beeleedka iyadoona dagaaladaasi ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyadoo ilaa haatan aan wax xal laga gaarin